soo ururiyo wax badan dhexgelin inta danta la leeyahay ay ku gudmi karto ama ku dhamaan karto inta ku ekow hoos u sii gudbi nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadh baa u timid waxay tiri rasuul ilaahayow laba nin baa isoo doonay laba nin oo saxaabada kamid ah baa isoo doonay keen guursada oo gula talinaysa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam labada nin mid waa sucluuk la maal lahu buri waa faqir aan waxba haysanin nina waxba ka nixin waayo ka isaga ku gula talinaya guursanay waxba kuma biili karo kaas kalabaadna wuxuu yiri la yad'u al-'asa 'an 'atiqihi nin ushiisa garabka ka dhiga ma mar walba ushu garabka u saaranta maxaa laga wadaa riwaayad kala cadeysay darabun lin-nisaa dumarku aad u garaaca waa nin dumarka tuma oo garaaco saas daraadeed nin dumarka garaacana kugulama talinaya inaad guursato buu nabiga sallallahu alayhi wasallam soo ma jeedid macnaheedu waxa weeyaan nabigu labada nin ba ceebtii uu gabadha yani inay guursato labada nin u diidi lahaa buu u sheeg kana wuxuu yiri waa nin waxba haysanin kana waa nin ceebtiisu ay tahay dumarka ayuu garaaca saas daraadeed labadaba kugulama talinaya inaad guursato ee waxaad guursataa usaama guurso buu nabiga sallallahu alayhi wasallam nin kale labadoodaba uu nabiga ka doorbiday buu usaama guurso in hada albaab haday mas'alo guur soo gasho naseexay markaa noqonaysaa gabadha walaasha waa inaad wixii aad ka ogtahay guur maadaama loo jeedo aad tiraahdo intaasan ka ogay hadaad ku guursanaysan waa hawl ku taala hadaadan ku guursanayna waa hawl ku taala taasi baabu nasiixa weeye ayada laftoodana ad-daruratu qadar biqadariha weeyo qiyaasta baahida ku filan ka siyaadin maysa oo hadii lagu yeeri gabadha bal wax nooga sheeg inaad madaxeeda ilaa minjaheeda wada sheegto ma sooma hadii lagu yiri dabeecadda wax nooga sheeg iyadoo dhan inaad kala dhigto ma waa inaad in yar ka sheegto tiraada gabadhaas khayr baan anigu ku ogahay wanaag baan ku ogahay intaan ka aqaano waa gabadh qiimo leh guursadad guursanayso hadaad wax ku ogtahayna si gaabo inaad tiraahdo yani intaasan ka ogahay wabillahi tawfiiq sidaas baabu nasiixa ay noqon kartaa laakiin asalka hadaan marka guur meesha ku jirin asalku wax weeyaan gabadha muslimada walaasha ah wixii ceeb ed ka ogtahay inaad banaanka u sheegto ma aha maxaa yeelay waman satara musliman satarahu Allah ruux muslima ruuxi astura ilaahi baa astura subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfiiq su-aasha kale sheek ku xigtaa gabadh waxay leedahay waxaan aada iyo aada u maagi jiray ama wax uga sheegi jiray gabdhaha wadaadada iyo xijaabka iyo ragga wadaadada intii aanan diinta fahmin markii dambe aan ogaadayna waan iska daayey marka waan ka toobad keenay jahli baa ii geeyey acmaashaydii markaa ma waxay ku jirtaa dadkii muflisiinta ahaa ee la qaadanayay mise haddaan ka toobad keenay jahnilo ii geeyey waxbaa ii badbaadaya horta ilaahay mahadii weeye inuu ilaahay ka soo saaray subhanahu wa ta'ala dad badan baa wali ku dhex jiray inay dadka gabdhaha wadaadada iyo dhalinyarada wadaadada inay wax ka sheegaan qaar baa wali ku soo ibtilaysan bal qaar baa ku dhintay bas ay wax uga sheegayaan Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون كوا قبلها مؤمنات كأه إلهي يقالنا حمانتا إيا معسيادة إيا الزينة كل شيء كوا سي الله وحوري سبحانه وتعالى هلا قبطو سيديتا شيدا الله هلغدفتو سيديتا كرباش هلغدفتو وانا فاسقين إلهي طريقي سي كبحيوي إلا الذين تابوا ضدك صون نقضي خلط كي مركا يقالين كصون نقضي مويه مركا وخلط دوين أو كيني كرا حتى حد شرعي كيني كري خاصة هدو يهي waxa aad ku sheegayso way zinaystaan
sida Soomaalidu ku sheekaysan jirtay Soomaalidu waagii dacwadu intay bilaabatay oo gabdhuhu isxijaabeen oo diinta la qaatay wadaadadii hore ee khuraafiyiinta ahaa ee waxoogaa kursigoodii dhacay baa dadweynihii waxay afka u geliyeen wax aad iyo aad khatar u ah gabdhihii wadaadada ahaa iyo dhallinyaradii wadaadada ahayd oo la leeyahay maartay waa waxbay sameeyaanoo maxaa idinka ogtihiinoo ikhwaanu muslimiin baa la dhahayo habeenkii saqda dhexay meelaha isla galaan oo ya allah cajiib warkaasaa magaaladii isgaadhsiisay oo la waday oo dowladdii ka qayb qaadatay oo dad badan baa ku fitnoobay ilaa iyo hadda dad baa ku fitnaysa oo rumaysan baa annaga hadda marka meeshan aan isugu nimaadno muxaadaro la isu jeedinayo duruus kalaaba ka socotaa lagu leeyahay meesha war maxay tahay duruusta kale meesha ka socota إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم dadka wax ka sheegaya khaasatan zinada iyo faaxishada ku sheegaya gabdhaha mu'minaadka hadana gaafilaadka waxa la yiraahdaa waa mu'minaad maba ka war hayaanba waxa lagu sheegay qalbigeedaba kuma soo dhicinba inay zinaysato inay samayso iska badhaafay hatta qalbigeeda kuma soo dhicin inay waxa ku kacdo waa gaafilad waa moogtahay waxa soo dhama kuwa sidaas kuwa wax ka sheegaya ee qadfaya zinada ku sheegaya ilaahay waa lacnaday subhanahu wa ta'ala lacnad ba ku dhacday hadday saa ku dhintaanna cadaab weyn bay leeyihiin maalinka ay xubnahooda ku markhaati kici doonaan khalad marka haddii la galo oo khaasatan ruuxa jahli u geeyo allah subxaanahu wa tacaala aayadda akhirkeeda wuxuu yihi ila aladiina taabuu towbaddu waa kuu furanta ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisay ka mid tahay inuusan khaladka inugu fiirsanin oo uusan dhihin khalad haddaad gashay bas waa kuu dhammaatay wabillahi towfiiq jaanis baa weli kuu furan jaaniska kuu furan waxa weeye khaladkii isgaro oo soo noqo إلهينا سبحانه وتعالى قعمه فرن بكوسو دوينيه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل هبينك روحي خلط قلا ما انت با الهي غعنت في ديني ما انت روحي خلط قلنا هبينك با غعنت الله في ديني وخلي ادونك يو سو نقو igu soo noqo khaladka ka soo noqo waa ka aqbalaya sidaas daraadeed waxaad samaysaa tawbad saabiqa la imow oo arintii xumay hore ee samaysayna qalbigaaga aad ha uga gubto dib dambana ha ugu noqonin oo go'aanso inaadan dib damba ugu noqonin kana xumow joojina waxa kalood ku dartaa inta noloshaada ah dadkii mu'miniinta ah u ducee sujuuda ugu ducee meel walba ugu ducee waxaad tidhahdaa allahuma اغfir lilmuslimiina wاlmuslimaat اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى أهو دتك مؤمنات كا يرجع مؤمنات ينكو خلدم إله ودم بداف إله ودم بداف أيضا إله ودم بداف ويدي أظن خلط كي كسر نقط بإذن الله تبارك وتعالى إله وكاتب على قبل إياه وبالله التوفيق صلاة دي مغرب آدي ياد سودو سؤاله سوق عليه لبا قدام بي لبا مركا آد بيسو شبهانا ويسوقيهين مركا ونسوقيني إن شاء الله تعالى mid waxay ka timi gabadha dhalinyaro ah waxay leedahay reerkayga aanun baa ka tukada markaan u sheego salaada ama salaada subax u kiciyana waxay ugu yidhaahdaan orodoo naga tag salaada adigu naguma lihida ilaahay baa nagu leh waanan la noolahay waxaan sameeye garan maaye maxaan sameeyaa haweeneyna waxay leedahay ruux dumara baanahay oo muslimad ah waan tukadaa ninkay qabaana ma tukado markaan ku yiraahdo tuko wuxuu igu jawaabaa iska farfarso kulli laga aqbali maaye marka ma iskaga tagaa بسم الله الرحمن الرحيم صلاة صادق سنتي ولا ليال waa tiirka labaad oo ruuxa islaamnimadiisu ku taagan tahay tiirka koobaad waa tawxiidka laa ilaaha illa allah tiirka labaadna waa salaada ruuxii salaad ka tegey islaamnimadiisii way dunsan tahay wax islaamnimo uma taagna saas daraadeed buu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ruuxa iyo gaalnimada salaada u dhaxaysa hadduu ruuxu mar hada salaada ka tago waa gaaloobay buu nabi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh